amaha amniga ayaa sheegay inay ku raad joogaan gacan ku dhiigle wiil sanjir ah shalay ku gowracay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne. Gudoomiyaha magaalada Beledweyne Maxamed Ibrahim Food Cabdi ayaa VOA u sheegay in xogta ay helayaan ka maamul ahaan qofka dilka geystay in uu ahaa nin dhalinyaro ah isla markiina goobta ka baxsaday, waxaana uu shaki geliyay xiriirka ka dhaxayn kara dhacdo midan la mid ah oo hal bil ka hor ka dhacday isla xaafadda Howlwadaag. nin mataqaana oo nin dhalinyaro u hayliiri nin jirin ahna liir nin caadi u hayliiri nin ku naagta oo tilmaantay way asatay uu naagta way tilmaantay markuu cunuga uu soo reedo qofka uu siga orday tilbuutu ka booday marka waa arkayay waa daba orday way asatay marayna marka xaafadii oo dhan marka xalay amarta aan howlgelin gelini marka in la helo ay dhul yahay insha Allah taala tii horo bishii horo cunuga nin story ku dhashay ninka story ku dhashay waaliha leeyri mana hadda ma arkin lama ninkiina norma xaqiijin ninkii markii la raadin waa la waaliir meel uu aaday leeyahay marka taas marka nin la cunin ahayn laakiin kan qoorta toos loo goysay toos loo biray kan sidii xoolihi qoro Quraysh Maxamed Ahmed oo ah hooyada dhashay wiilka la gowracay oo lagu magacaabi jiray Cabdishakuur Umar Maxamed Maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in qabarka dilka wiilkeeda ay heshay iyada oo joogto suuqa xaafadda, waxaana ay sheegtay inaanu jirin cid ay colaad kala dhaxayso oo sababtaana ay filayso in wiilkeeda loo dilay. Manaan ku dhaleeyaan ka tagay aniga badalay baana suuqan aaday suuqa daan tagana suuqa jawabad mugil soo tukay ka bacdi waxa la yiri kuwa meeyda ku yaal meeyda ku yaal hadii la yiri gabar walaashay guriga meesha igu timid oo ay ku soo raacanay meesha aday ninkan tagay ninka qalan baan مسألة من لا قلي كل الجاب لا قلي والجاب لا قلي الله أعلم إلهي بعيد أمان أغانكر وين هو شنجر شمس مزرعة الشكور عمر محمد الله لدن بعض الله مرة بروح هذا وش أنكر بروح أسوين كعقلي مقرنا taliyaha saldhigga booliska Beledweyne gaashaanle Maxamed Macow Xalane ayaa dhacdadan iyo mid kale oo ka horeysayba waxa uu ku tilmaamay inay tahay fal argagixiso. kiiska waxaan ku tilmaami karnaa runtii inuu argagixiso yahay argagixisaduna dhan kasta ayay ummadda shacabka Soomaaliyeed uga tilmaadaa marka kiiskaasu kiis argagixiso ahay cunuga waxa lagu dilay guriga iridiisa hore albaabkiisa hore ayuu ku qabtay ninkaas gacan ku dhiiglaha ah qoorta ayuu ka gowracay oo bir uu gacanta ku wato ku gowracay waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada Soomaaliya gumaadaysa oo qayb kamida uu yahay kiiskaasuna wuxuu u dhacay noocaas cunuga guriga iridkiisa ayaa meeshiisii ayaa lagu arkay gabar guriga joogto yaraa ala dhaamistay isla markii annaga lafteena qaybteena naga soo gaartay waana tagnay meeshii dhacdadan u egaa jirtay wiilaa sidaas oo kale qoorta in laga gooyo la isku daygaasu runtii ma suuro gelin oo cadowgaas waa laga badbaadiyey wiilkaas waxaan dhihi karnaa marka labadaas laba dhacdo isku eg oo isku ficil oo isku fulinayo waa kaayeen maadaama taa ay ahayd qoorgooyo isku day ah kiiskaasna ilaahay uu ka badbaadiyey wiilkaas kaloo yar. waa dhacdadii labaad oo muddo 2 bil gudaheeda ka dhacda magaalada Beledweyne. horaantii sanadkan ay ahayd markii sidan oo kale wiil da'diisu ay ka yar tahay 10 jir uu nin torreysita uu dhaawac dhanka qoorta ah u geystay. Me and my Sedi Muhammad Tariq smoke fosh dhammaan reer Sweden taageeraygu badan Sweden ay joogaan Tariq wada joogaan oo isku darsanayaan